dhalinyaradi qarankaay dhuuxii dalkaygiyo dumucdaya xoogii aan ku dhaaranaynay dhalinyaradi qarankaay dhuuxii dalkeeniyo dumucdaya xoogii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayuulay dhagaysta dimagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa maxkamaddu maantay waa fadhiga saddexaad haddii alla idmana go-aan bay gaaraysaa الله سبحانه وتعالى waxaan weydiisanaynaa inuu waafajiyo tawfiiqda maanta waa maalin khamiis ah bishana waa 22 bishii 8aad 2019 maxkamadda sare dowladda Puntland iyadoo kooramkeedu u dhameystiran yahay waxay u soo fariisatay dhageysi ka sameysay dacwada hadda ay u fadhido 17 bishii 8aad 2019 19 bishii 8aad 2019 insha Allah taala maanta oo bishu tahay 22 bishana waa fadhiga saddexaad inta kadib xukmanaha ugu horeeya Abdulfataax Cabdiraxmaan Warsame ina Faaduma Cali 24 jira ku dhashay Muqdisho Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame ina Faaduma Cali 32 jira ku dhashay Hargeysa qareena u wada yihiin Mustafa Maxamed Jaamac Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo qareen Axmed Salaad Maxamed Cabdishakuur Maxamed Dige ina Khadiijo Maxamed 46 jir ah ku dhashay Muqdisho qareena uu yahay Cabdirasaaq Maxamed Faarax kana soo qaateen xukunka tirsigiisu yahay Maara Isbaaro Gaana Isbaaro 115 xukunkaas oo ku taariikhaysan 30 bishii 6aad 2019 kana soo baxay maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ayna dhinaca ka tahay marxuumad Caaisha Ilyas Aadan iyo xafiiska xeeraryaha guud ee dowladda Puntland kuwaas oo ku eedeysan qodobada kala ah 332 434 qodobkaas waa dil qodobada kalena waa raacsan yihiin maxkamaddu way furan tahay cidda cabashada soo qaata bilaabaysa hadalka insha Allah taala dadweynaha dhageysanaya fadhiga maxkamadda waxaa rabaa xasiloonida iyo nidaamka deganaanshaha inay nagala shaqeeyaan annagoo kala qaran Mustafa Maxamed Jaamac iyo qaran Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo Axmed Salaad Maxamed kana tirsan ururka qaranada kalkaal qaranna waxa Abdulfataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame waxaan maxkamadda sare ee dowladda Puntland halkan ugu soo gudbinaynaa
caddaymo in cabdisalaan uusan ku jirin dilkii dadkii dilka iyo kufsiga u geystay caaisha allah u naxariistay. faahfaahin mudane guddoomiye garsoorayaal, maxkamaddii rafcaanka ee gobolka Nugaal waxaa xukunkeedii ku caddaysay in cabdifataax iyo cabdisalaan ay walaalo yihiin, isku hooyo iyo isku aabbe ah, ayna isku DNA yihiin. hase yeeshee ma kala caddayn kan DNA-da leh. cabdisalaan oo eedeysanaha saddexaad ah, xafiiska xeeralyaha guud wax qiraal iyo caddayn midna ah kama hayo, ama eedda waxa uu ku eedeeyey ilaa haddeer ma sheegin. waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sare inuu baloo weydiiyo xeeralyaha guud cabdisalaan xalka uu kaga jiro dembiga. waa eedeysanaha saddexaad buu lahaa ilaa maalintii kiisku bilowday. waxa uu qabtayna lama sheegin. gabadha ma dilay, ma kufsaday, ma soo gurigeliyey, muxuu sameeyey, ilaa haddeer ma sheegin. keliya wuxuu sheegay sida buugga tilmaamay inay isku DNA yihiin, walaalana yihiin, isgurina deganaayeen. waa walaalo, waa isku hooyo, isku aabe, waa isku dhiig, isgurina waa deganaayeen. intaas dad dembi tahay maxkamadda caddaynaysa iyadoo nooga aqoon badan. okay, lifaaqa buugga waxaa ku cad 11 eedeysano oo raga. buuggii annexkii ahaa ee aan shalay aragnay waxaa ku caddaa 11 ragga oo la baaray. hase yeeshee xeelaalinta maxkamadda wuxuu arkeenay 10 eedeysane, 3 eedeysane iyo 7 la sii daayey. ka 11aad meesha maxkamaddu geysay iyo xeeriyuhu wuxuu uga hadli waayey maxkamadda noo weydiinaysa. waxaan idin akhriyay haddaan doono, haddii maxkamaddu u baahato iyadoo qoraalna waa waxaan idin akhrinaynaa qaabka loo soo gaabiyey magacyadooda iyo qaabka OB-ga ay kaga yaalliin inta ay yihiin tiradooda. halkaa waxaan rabaa in laga fiirsado. ma rabna wax jaban in la sameeyo. dadaan dembi lahayna in la rabo dembi hala saaro, dadkii dembiga lahaana in laga saaro meesha baan diidaynaa. alaa tasiru waasiratan usra ukhraa aayad qur-aan ahayd. CCWBD 12A waa ka koowaad. ka labaad CMD BD 12C 2019 waa ka labaad. CCW waa ka saddexaad. kan afraad waa MAMNBD 12D. kan shanaad waa SCMBD. kan lixaad waa FCS. kan toddobaad waa FMA. magacyadooda dhammaystirna waa kuwa halkaas ku yaalliin. waa cabdifataax iyo cabdiraxmaan iyo cabdishakuur iyo cabdisalaan. waa axmed maxamed axmed cabdiraxmaan, farxaan cabdisiyaad, farxaan maxamed axmed, cabdinasiib cali cumar, maxamed deeq maxamed, cabdulaahi qorane maxamuud. oo loo sagaabisiisa MMC baa ka maqan qofka la yidhaahdo. 11 eedeysane baa halkaa ku qoran oo buugga uu baaray. buugga ayaanu ka helnay inay ku jiraan 11 eedeysane oo dheecaana laga qaaday oo la baaray. ma garan karno waxyaabaha qofka 11aad maxkamadda loo keeni waayey. waxaanu garan la'aanahayse waxyaabaha ay maxkamaddu xeeriyuhu u sheegi waayey qofka maqan meesha ku maqayay maadaama buugga uu hayay. waana sababaha buugga looga qarinayay ilaa maalintii. buugga lifaaqa ah wuxuu caddaynayaa in la baaray 11 rag ah, laakiin waxaa maxkamadda la hor keenay 10 eedeysane. 7 kale waa la sii daayey, 3 waa kuwa. xafiiska xeeralyuhu ma sheegin in eedeysane maqan yahay sida ku cad buugga lifaaqa. mana garan karno sababta uga aamusay, mana xusin eedeysanaha buugga ku qoran ee maqan. ma uusa xusin ilaa iyo maalintii oo ma hore waa ka maqanta. halkan waxaan rabaa maxkamaddu inay isdul taagto. buugga waxaa ku qoran, isla buugga waxaanu ka helnay oo ku qoran waxaa adag in la kala saaro cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame oo walaalo ah, isku hooyo isku aabba ah. hase yeeshee inay kala saaraan waxaanu u daynay laamaha baarista ee ku jira kiiskan baa buugga ku qoran. laamihii waa kuwii maalintii dhow qaraan kale uu sheegayay inay ka shooreen oo dhahan ninkaa ma sii daynaa mise maxkamadda horgeynaa. maxkamaddaa sii dayso oo waxyaabaha caddaynaya. halkaana waxaa ka cad inuusan cabdisalaan dembiga uusan ku jirin kuna lug lahayn. gebagebo sidaas darteed waxaan maxkamadda sare ka codsanaynaa inay jebiso xukunka baadilka ah ee lagu xukumay muwakkilkayga cabdisalaan, dibna ugu celiso maxkamadda darajada koowaad. sababtoo ah kiisku ma dhammaystirna oo waxaa ka maqan eedeysane. 2 eedeysane oo kalea moodaa inuu ka maqan yahay, sida kan buugga lagu baaray iyo kii inuu sheegayey cabdifataax uu sheegayey. waa 12 eedeysane baan aaminsanahay kiiska inay marka hore ahaayeen dadku. waxaan kaloo maxkamadda ka codsanaynaa in DNA-gooda
dibna u celiso maxkamadda darajada koowaad sababtoo ah kiisku ma dhammaystirna ee waxaa ka maqan eedaysanayaal laba ah oo buuggu sheegay tilmaantiisa qarsoodiga ah isla markaana xorriyaddiisii loo soo celiyo cabdisalaan maadaama uusan dembigaas gelin qiraal iyo caddaynna aan midna lagu hayn ama markhaatiyaal la waayey uusan markhaatiyaal caddaynayn oo shareecada islaamka ayaa waxay qabtaa qofka in la waxyaabad lagu dilo laba nin oo muqdara inay ku caddeeyaan xiskooda qabo oo islaama in la dhaha waxaas samaynayey qofkaa isagaa dilay iyo inuu isaga qorto mido ma jirto markhaatiyaal d n a-dana wax baaray aan la aqoon iyo cidda laga qaaday okay shareecada islaamka lagu xukumo waxaan kaloo qabtaa maadaama aan dad islaama nahay loona xukumo magdhow maadaama kiis uusan gelin muddo uu ku eesnaa sidoo kale cabdifataax maadaama uusan dilin uusan qirtay kufsiga waxaan maxkamadda sharaftale ka codsanaynaa inay dembigaas u khafiifiso maxkamadduna waa maasan tahay wixii cuskun iyo sharciga waxa ku daraya qareen kale waxaan rabaa dhowr nuqdo oo yaryar inaan ka hadlo mid baa hormarsanayaayo xeeraalintu waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay soo bandhigto guriga wax lagu sameeyey inuu yahay guriga muwakilkayga iyo inuu ka yahay labada guri oo kale waa qodobtaas maxkamaddaan iyada ka sugaya haddii ilaah insha allah haddii rabbidan ka dhigo midda labaad waxaan rabaa waxaa ii suura gashay aniga cabdirasaaq ah inaan maxkamadda ka helo buuggii yacni mataqaan wax lagu soo baaray waan akhriyo oo fiiriyo wixii khalada iyo wixii saxa oo ku jira waxaan rabaa marka khaladaadkii ka soo baxay buugga oo aan ka dhex helay inaan halkan ka caddeeyo oo aan ku duraayo baaritaanka d n a-ga inaan gebi ahaan la qaban karin haba yaraatee oo kulli iska hor imaanayo dhammaantii intuu ka tira yahay qofna aan xuduud loogu fulin karin anigoo ah qareen cabdirasaaq maxamed faarax ahna qareen ka tirsan ururka qareemada tawakal qareenna u ah muwakilkayga cabdishakuur maxamed dige kana hormatalaya maxkamadda sare dowladda puntland waxaan halkan maxkamadda ugu soo gudbinayaa khaladaadka ka ku jira buugga la sheegay in lagu baaray d n a-ga muwakilkayga cabdishakuur maxamed dige khaladaadkaas oo ka dhigaya waxaan la aamini karin buugga markaan leenahay waxaan la aamini karin sida qaanuunku qabo qodobka 161 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waa in loo dhan yahay maxkamadana dirtaa baaritaanka ee khuburada markii la samaynayo waxaa halkaa iiga soo baxday oo caddaatay baaritaankan inuu yahay mid hal dhinaca oo hay'adaha baarista ku kooban laakiin maxkamadana ayaan u dirin dhinaca dhibanayaashuna eedaysanayaashuna ayaan shaqo ku lahayn waa arrin yacni mataqaan qaanuunka hor imaanaysa qodobka 161 waa ka hor imaanaysa qaanuunka hor imaanaysa asbaabta marka gudoomiye garsoorayaal sida ku cad page-ka labaad ee buugga waxaa ku qoran waxaa dhacaano laga qaaday waxaan maleeyahay ragga hore waa sheegay waxaa laga qaaday wax 10 maxbuus waxaana la baaray 11 maxbuus oo kala hadalkaasu laguma aamini karo buugga laftigiisa maxkamaddu hadda markay fiiriso page-ka yacni labaad wuxuu leeyahay waxaa la baaray 10 maxbuus waxaana uu ku qoran oo baaritaanka dhacaamada laga qaaday 11 maxbuus arrintaas waxa weeye waa tacaarud iska horimaad weeye wax alla wixii iska hor yimaada oo aan isku aadanayna waxay noqonayaan waxaan waxba ka jirin bay noqonayaan qaanuunka iyo shariicada islaamkaba kelmaddaas iska horimaad weeye 10 maxbuus baa la baaray waxaana dhacaamo laga qaaday 11 maxbuus waa laba ereyo iska soo horjeeda waxaan ugu celiyay maxkamaddu inay isdaga si wacan u fiiriso
nuqdada labaad mudana guddoomiye garsoorayaal muwakilkayga sida buugga ku cad waxaa lagu baaray magaca ah CCD wuxuuna ku eedaysan yahay CMD oo buugga mar kale loogu bedelay waxaan rabaa maxkamaddu inay hadda isla waqtigan ka codsanaya inay fiiriso bejka 9 ee buugga bejka 9 ee buugga waxaana loo bedelay CMD isagoo lagu caddeeyey buugga bejka 9 oo odhanaya xusuus waxaa loo qoray CCD laakiin wuxuu noqonayaa oo loo bedelayaa CMD waa kala hadal buugga ka soo dhex baxay horeyna waxaanu ahayn in magaca hooyadii khaldan yahay khaladaadka iska horimaadka ah oo noocaas oo kale ana meelaha annagu aanu ka faa'iidaysan oo qareemadu ka faa'iidaystaan bay ka mid tahay oo loo baahan yahay maxkamadda in loo caddeeyo waxaanu ku doodayna muddo muwakilkayga cabdishakuur inuusan ahayn ninka dhacaankiisa la baaray nuqdooyin kale oo badanna waa soo bandhigaya kelmaddaasi waa kelmad muhiima waa arrin aad u adag CCD iyo CMD maxkamaddaanu u soo jeedinayna inay iswaafajiso oo buugga dhexdiisa ku qoran mudana guddoomiye garsoorayaal sida buugga bejka 10 ku cad hay-adaha baaristu ku caddaysay in khalad imaan karo marka la baarayo waxay caddaysay buugga waxaa ku cad in khalad imaan karo marka la baarayo DNA-ga oo aan mar walba uusan 100% noqon karin waa bejka 10 baa qoraya kelmaddaas oo ay qoladii wax baaraysay laftigeedu caddaysay in aan mar walba la heli karin 100% wax ah waxa weeye waa shuhubaad shuhubana cuquuba lagu fuli karo shuhuba weeye buugga rasmiga bay ku qoran tahay oo dadka baaray baa intaas oranaya midda kale oo meesha ku jirta guddoomiye garsoorayaal waxa kale oo ay hay-adda buugga ku caddaysay in uusan muwakilkaygu baaritaanka lagu sameeyey aan laga helin 100% lagana waayay qaybo ka mid ah dhacanadiisa sida buugga ku qoran arrintaasoo noqonaysa 96% waa iyada laftigoodu saan u aragno inay buunbuuni tahay oo la buunbuuniyey sababtu waxa weeye marba haddii qayba laga waayey qaybaha qaabka looga helay aad baa lisu weydiin karaa arrintaasoo ah midda aan lagu aamini karin iyadana waxyaalaha aaminka ka saaraysa buugga in la aamino aaminaadda ka saaraysa midda kale tan waxa weeye saas baaritaanka xeer ilaalintu mar walba waxay adeegsanaysay muwakilkaygu inuu yahay ninka labaad markay wax eedaynayaan hase ahaatee baaritaanka wuxuu ku jiraa kaalinta 3aad buu kaga jiraa iyadoo laftigeedu waa iska horimaad dacwada ay soo jeedinayaan iyo qaabka buugga u qoraayo waa wax iska hor imaanaya waxyaalaha iska hor imaanayana DNA-ga baaritaankiisa iyo buugga midna laguma aamini karo midda kale mudana guddoomiye garsoorayaal waxaa bejka 5 ee buugga lagu caddeeyey in DNA-ga kala bar hooyada laga raaco barna aabbaha waxaana cad in magaca muwakilkayga hooyadii khaldan yahay oo hadda waxa weeye magacii horta waa khaldanaa magacii hooyadu waa khaldanaa oo muwakilkaygu uu khaldanaa haddana waxaa soo baxday khalad kale oo ah in magaciisa la yidhaahdo lagu baaray CCM oo loo bedelay CMD waa waxyaalaha yani aad uga soo horjeeda eedaynta iyo qaanuunka iyo nidaamka iyo ninka lagu eedaynayo nin dil lagu eedaynayo
wax cad oo la yaqaan oo sidaan hore u sheegnay shareecadda islaamka say qabto oo ah laba qof oo markhaantiya in ay ku caddayso iyo inuu qiraal bixiyo qofka waxaa loo haystaa waa dil waxaa lagu soo xukumay waa dil haddana haba yaraatee labadaa erey midna looma hayo eedda kale oo buugga la cuskaday oo hay-adaha baarisa cuskadeenna waxaa ka muuqata iska horimaad aan la aamini karin xuduudna lagu fuli karin fadhigii koowaad ee maxkamadda sare wuxuu ka qirtay inuu ka mid ahaa raggii kursi wadareedka kula kacay marxuumad Caaisho Ilyas isagoo inkirsanaa labadii maxkamadood oo hoose wuxuu inkiray inuusan wax ka dilin isla markaana afduubin taasoo uu ka been sheegay haddaba xukumanahaasi wuxuu si buuxda u galay dembiyada kala afduub kufsi wadareed dil lagula kacay marxuumadda Caaisho wuxuu kaloo si buuxda u galay dembiyada kala sumcad diilid shucuubta muslimiinta dowladda Puntland shacabka ku abtirsada magaca ummadda Soomaaliyeed sumcadda iyo karaamada waalidkii iyo ehelkii dhalay wuxuu kaloo khalkhal geliyay amniga guud qiraal waxaan ku haynaa meesha uu yidhi shiina ayaa ii yeeray halkaa wuxuu ka leeyahay aadan ayaa gurigayga igu yimid oo igu ballamiyey guriga shiino oo yidhi igu imow caddeynteedii waan haynaa taasi waa dhacdo la qaban karo oo ah hadalla isburinayo waxayna caddeynaysaa qiraalka isaga inuu ku qarinayo cabdifataax dembiyadii kale uu galay iyo inuu dembiga ka saaray inuu doonayo walaalkii haba yaraatee inuusan waxba geysan inuu maxkamadda u muujiyo walaalkiisa la xukumana la ah cabdifataax wuxuu yidhi oo aanu haynaa markaan guriga ugu tegay marxuumadda maxkamadda sare wuxuu ka hor qirtay wuxuu yidhi marxuumaddu way aragtay maadaama ay aragtayna waxaan ku khasbanaaday inaan u galmoodo okay qiraalka horena wuxuu ku leeyahay marxuumadoo xirxiranoo suuxsan yaan u galmooday aniga iyo aadan laba kondhom ayuuna siiyey cabdirashiid ninkan la yidhaahdo shiine oo aanu ugu galmoonnay gabadha waa halkay ka leeyihiin qareennada kufsi ma jiro waa ka been sheegid ay ka been sheegayaan mihnadooda taasina xeerka qareennada ayay u taal sababaha guriga shiino oo qolka keliya ah aysan uga dhici karin dembiyada ah afduubka iyo dilka iyo kufsi wadareedka yaan maxkamadda u caddeynaya waa hal qol keliya waxaana la degan gadaal ka degan hooyadii baa la degan buu yidhi cabdifataax haddaba waxaa jira caruur yaryar oo u dhalay shiino iyo walaashii Caaisho isku iskuul bay ahaayeen isku dugsi bay ahaayeen sinaba uma suurtagelin Caaisha qolka arid banaanka sabab ay ku gali kartaa ma jirto maxkamaddu iyaga ku furmatay doodoodii waa la dhageystay maxkamaddu way dhageysatay sidoo kale difaaca xeeraaliyaha maxkamaddu way dhageystay cadeymuhu soo bandhigay halkan waxaan ku hayaa oo maxkamaddu ku haysaa gabagabadii ay soo gudbiyeen qareennada kale ah xabiib cabdullaahi ciise iyo mustafa maxamed jaamac marka maxkamaddu waxay kiisa kan amraysaa in la soo gabagabeeyo maadaama aan hayno qareennada gabagabadooda qoraal ah inay dood afeedna raacsadaan kusoo gabagabeeyaan sidoo kale xafiiska xeelaalinta sidoo kale sidaa ugu jeedeen sawirka gabadha yar Caaisho waxaa ka muuqday sawirkaasi inuu anigu ma hubayna iyada tahay laakiin waxaa ka muuqda dhaawacyo aada u daran
oo ilkaha uu ka qubtay oo dhiig aada u fara badan waxaan maxkamadda waa ku celinayaa ka codsanayaa xafiiska xeeraalinta inuuna siiyo oo maxkamadda ku haraaqiyo shahaadadii dhimashada meesha ay kaga caddahay ilkaha qubtay sanka jabay intaas maxkamaddaan weydiisanaynaa inay maxkamaddu noo aqriso shahaadadii dhimashada halkaas waxaa iska hor iman doona hadalka iyo sawirada uu isticmaalaya iyo shahaadadii ay sameeyeen dhakhaatiirtu wuxuu yidhi xafiiska xeeraalintu cabdisalaam wuxuu deganaa guriga ay goobtu ka dhacday walaalkiina uma sheegin cabdifataax aabihiis baa joogay walaalkii ka weyn baa joogay oo weliba nin ganacsado ah isla markaana agency diyaaradeed haysta wuu ku talagalay inuu qariyo laakiin hadduu u baahan lahaa inuu sheego walaalkiis ka weyn buu wici lahaa sida ku cad qodobka 37 lagama maarmaan iyo qodobka 39 waxaa lagama maarmaan ah inaanu sheegno xaqiiqooyinka macnaha uu sameynaya qadiyadda cabdifataax haddii uu ku talagalo inuu waco walaalkiis ka weyn yuu dhihi lahaa tigidii jir laakiin uu ku talagalay go-aankiisa inaad inuu qariyo isla taas inuu ka duulaya inaan deganahay anigu goobta wax ka dhacanin macnaheedu dambiile iga dhigi mayso 2,000 qof haddii lagu dilo dambiile iga dhigi mayso walaa tasfiru waasiratun wisra ukhra sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in ay naga jebiso xukunka dilka ah mudane guddoomiye garsoorayaal marka maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal waxay meesha ka saartay waxa laale wixii istifaac ahaa ee aan hore u soo bandhignay sida shareecada islaamka waxay wax ku dishaa oo xuduud lagu ku fulisaa laba arin oo kala ah in qofku qiraal bixiyo lagu kalsoonaan karo oo jira sida ay qabaan qodobada 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed farqadiisa saddexaad iyo qodobka 149 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed isla sida waxa qaba shareecada islaamka oo oranaysa irdu al-hudud bishuhbaat waxaan maxkamadda sharafta ka codsanaynaa in una cadeynaynaa in muwakkilkayaga uusan dambigaas gelin eedda ah hase yeeshee lagu eedeeyey keliya sida aragtaan uusan hal eray oo eeda oo cabdisalaan uu leeyahay uusan maxkamadda darajada koobaad tii rafcaanka iyo tan sare uusan midna ka oran cabdisalaan eediisa waa walaalo aan ahayn waa walaalo waa isku dheeray isguri bay degan yihiin waxaa naloo caddeeyey nin 80 jir ah oo musalliya oo nin weyna waan soo kaxaynay oo iskool maamulo ka ah waxaanu keenay maxkamadda darajada koobaad gaalkacyo kitaab baa la mariyey wuxuu yidhi ninkaas wuxuu noo yimid hal saac oo subaxnimo noo yimid shaqada soo gala xisaabiyu iskoolka ahaa bishu 24 baa ahayd bishu dhammaad baa ahayd wuxuu yidhi duhurkii markii laga baxay isku meel baan ka soo qadaynay waa soo wada noqonay xiisadaanu bilownay casarkiina meeshaan ku wada tukanay maqribkii buu iga tegay hal saac oo dhadhow nus saac buu iga tegay gurigii iga aaday buu yidhi habeenkii maaqaan buu wuxuu sameeyey aroortiina waa soo kala lahay sidoo kale uu ninkaas kitaab ilaahay ku maray nin weyn buu ahaa aakhiradiisa ma gadanayn saanu aaminsanahay maxkamaddaa dhaarisay cabdisalaan aroortii uu soo galay haddana hal saac subaxan uu soo galay isla sidoo kale bisha 25 bay ahayd xisaabaad buu waday ardaydu kala diwaan gelinayay xiisadaha macallinka maqna waa buuxinayay duurkiina isku meel baa dalka soo qadanay isla sidoo kale aan soo noqon casarkii ayaa ciidamada biyo isu yimaadeen sidaas laaligeed markhaatigaas sugan shuruudaha bixiyey oo galkaa ku jira macasawirkiisa aan soo qaadnay baa noo caddeeyey waxaa kaloo noo caddeeyey laabka buugga dheanaaga maadaama uu leeyahay waxaan u daynaynaa laamaha baaristu inay kala saaraan labada walaalaha isku dheanaaga sidaas darteed maadaama xeeraalintuna ay isdaba marisay ama aysan eedayn dad la eedeeyey oo buugga ku qorana aysan eedeeda soo gudbin dad masaakiin aan wax dhibina ay eedaysay sidaas darteed waxaan maxkamadda sare ka codsanaynaa inay jebiso xukunkii baadilka ahaa ee maxkamadihii hore ee lagu xukumay muwakkilkayga cabdisalaan dibna ugu celiso maxkamadda darajada koobaad sababtoo ah kiisku ma dhammaystirna oo waxaa ka maqan eedaysanayaal kale laba eedaysane eedaysanihii cabdifatax hore uu sheegay iyo eedii uu sheegay ninka la yidhaahdo iyo ninka kale ee ku qoran meesha waa 12 eedaysane noqonaya sida uu qabo qodobka 115aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dacwadda oo in la tirtiro caddayn la'aan sidoo kale waxaan maxkamadda ka codsanaynaa inay magdhow siiso
muwakilkayga maadaama uu iska xirnaa arrimo qadaf oo ku xirnaa ninkaa walalaha ay ku xirnaayeen sidoo kale cabdisalaam waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sharafta leh inay cabdifataax u fududeyso maadaama uu isagu qirtay inuu kufsi galo uusan dil gelin labada dembina ay kala saaran yihiin oo midna sina ay tahay macsiya hadduu soo maray guurna dhagax uu ku dul yahay oo qadna aqal u samaynayn hadduu soo marina ujeedada maxkamadduna waa mahadsanta maanta waa adduun naf walba waa dhadhamin doontaa mawdka qabri 2 mitir baana la geen doonaa cid la gelaysana ma jirto maalin waxaa jirta afka la xiri doono gacmuhuna hadli doonaan luguhuna ay kugu markhaati furi doonaan maalintaasaanu wada joognaa qareennada insha allahu tacaala maxkamadda sharafta leh maadaama 3 xukumane maxkamaddii darajada koowaad iyo racfaankaba ay ka inkireen dembiyadaanu ku soo eedeennay oo ay u geysteen marxuumad caaisho Ilyaas Aadan oo kala ahaa afduub kufsi wadareed dil sumcad dilid shacabka iyo dowladda Puntland sumcad dilid ummadda islaamka ku abtirsata sumcad dilid waalidkii iyo ehelkii dhaqanka suubanaa ee islaamnimo ku soo tarbiyeeyey balse maxkamadda sare oo qaanuuni ah markaanu taagneen xukumanaha koowaad cabdifataax uu qiraal ku noqday keliya hal arrin oo ah inuu ka mid ahaa kufsi wadareedka balse uu yidhi dembiyada kale ma gelin qiraalkaasoo ujeeddadiisu ahayd inuu ku qariyo dembiyada kale uu galay ama walaalkii oo la xukumana ah beri ka dhigo haba yaraatay inuusan dembi lahayn sidaasoo kale xukumana cabdishakuur maxamed dige wuxuu maxkamadda sare ka hor qirtay oo labadii maxkamadooda mawduuciga ahaa inkiray lacagtii qabriga qarsoodiga ahayd lagu qodayo mobilkiisa in lagu soo shubay weliba asaga u weydiiyey 2 gabdhood oo uu yidhi mid ka mid a waa gabar carab saalaxo waa la weydiin karaa maxkamadda horteedu ka yidhi labadii maxkamadoodoo mawduuciga ahaana oo inkiray halkaa wuxuu qiraal ku yahay Caaisha inuu dilay waxay caddeynaysaa Caaisha inuu kursigeedii ka qayb galay waxay caddeynaysaa afduubkii inuu ka qayb galay dembiyada kalena 3daas ayay ka dhasheen haddaba maxkamadda sharafta leh buuggan waa hay-adda Francis Science-ka dowladda Puntland waa hay-ad baariseed beejkeeda 6 wuxuu leeyahay sida tan sida aanu hore u soo sheegnay cilladda ay leedahay kromosoomka Y waxay tahay inaysan kala saari karin ragga wada dhashay ama qaraabada xagga aabbaha ka ah haddaba waxaa dhacday in CCW oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame oo wata nambarka OB nambarka wata 12A iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame oo wata buugga dembiyada ka wata nambarka 12B ay yihiin 2 nin oo isku aabbo iyo isku hooyo ah waxayna muujinayaan isu ekaansho 100% oo xagga kromosoomka Y-da ah sidaa darteed isagana meesha si buuxda loogama saari karo cabdifataax qiraalkiisa hadduu ahaa walaalka Beriel wuxuu leeyahay
iyo d n a-gaasaa laisku kin khaldaya qiro hadday ahayd taas ayaa leh saddexduba labaduba lagama saari karo. sidaa awgeed maxkamadda sharafta leh xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu u soo jeedinayaa inay ku go-aan qaadato kow wuxuu ka codsanayaa una soo jeedinayaa maxkamadda sare dowladda puntland inay ku go-aan qaadato kow xukunadii labadii maxkamadoodoo hoose oo mawduuciga ahaa. labo qiraarka kufsiga ah ay u aqoonsato inuu ku qarinayay dembiyada kale ee uu galay oo ah afduubka iyo dilka uu u geystay marxuumad caaisho, iyo inuu walaalkii ka baryeela haba yaraatee dembi inuusan gelin xataa aan loo sheegin xataa uusan maqlin. saddex caddeymaha ku xusan buugyaraha hay-adda francis syniska dowladda puntland siiba boggiisa 6 siiba baaragaraafka boggaas ugu dambeeya. maxkamadda xafiiska xeerlaalinta wuxuu soo jeedinayaa kana codsanaya intaa inay ku go-aan qaadato. maxkamadduna waa mahadsanta. maxaad maxkamadda ka codsanaysaa? kiiskii waa la gebagabeeyey. codsigaaga maxkamadda shaak. بسم الله الحمد لله محكمة الشرف تلا حفيز خير العالنتا بعض الصحافة شعبك إذا ماذا دماغ وحكم سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محكمة الشرف تلا أدي ويدي سواحن عطسنا يعني حريص مع عطسنا يا إلهي وحنا حريص أنا هو كيس عن جلي وكفس يسقينا يقول قاعد ما حصلت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa inay ii soo celiso xorriyaddeeda. assalaamu calaykum waraxmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم دمان ددوينها محكمة الشرف الله السلام يا دمان قرصوراي مدحدي علمada iyo waxgaradka iyo hooyooyinka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa awal anigu dambigan ma geysan waa masabid waxaan ka codsanayaa xukunka labada jeer oo dilka oo baadilka lagu xukumay in la iga jabiyo aan midna u geysan ilmaha saqiirka oo ilmahayga oo kala ah awlaadeyda oo kala ah aan waxaan ka galabsan jirin haba yaraatee. بسم الله الرحمن الرحيم. محكمة سر دولة puntland محكمة سر وكوبان قرصوريا شكراه نور عيسى محمد أحمد هادي آدم يوسف عبد الغني بيري عول وكالية كي هي عبد الله عثمان محمود كالية محكمة السر حكومنا ياشا عبد الفتاح عبد الرحمن ورسمه عبد السلام عبد الرحمن ورسمه أو قرين أكليهين قرين حبيب عبد الله عيسى هي قرين مصطفى محمد جامع عبد الشكور محمد دقة وقرينو يهي عبد الرزاق محمد فارح تعفان ليال xafiiska xeeraryaha guud ee dowladda puntland heerarka cabashada soo martay ama dacwadu soo martay maxkamadda darajada koowaad maxkamadda racfaanka waxaa ka soo baxay 2 xukun oo isku mid ah. xafiiska xeeraryaha guud wuxuu ku eedeeyey xukumanayaasha magacyadooda aan soo sheegay dambiyada kufsi afduub iyo dil iyo qodobo kale. intaa kadib asbaabta maxkamadda markay aragtay duritaanka xukunka maxkamadda racfaanka ee gobolka nugaal ee ku taariikhaysan 3 bisha 6 2019 ay xukunkaasoo ay ku xukuntay cabdilfataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsame قرن ويهين حبيب عبد الله عيسى مصطفى جامع iyo عبد الشكور محمد دقة وقرنوا يهي عبد الرزاق محمد فارح markay aragtay maxkamaddu dhammaan dukumeentiyada dacwada ku jira markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad
ku taariikhaysan 27 bishii shanaad 2019 markay aragtay buugga baarista DNA natiijada ka soo baxday dhimashada marxuumad Caaisha Ilyas maxkamaddu markay aragtay warqadda ku taariikhaysan 25 bisha labaad 2019 ee dhaawac muujinta ah ka soo baxday isbitaalka guud ee Gaalkacyo maxkamaddu markay dhageysatay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame inuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu kufsaday marxuumad Caaisha Ilyas aadan qiraalkaas oo waafaqsan qodobka 149 xeerka xabka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay Cabdishakuur Maxamed Dige in maxkamadda horteeda uu ka qirtay inuu diyaarinayay qabrigii marxuumad Caaisha Ilyas aadan lagu aasi lahaa xukunka maxkamadda sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota maxkamaddu waxay diiday cabashada ay soo qaateen Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo qareen u kala yihiin Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo qareen Mustafa Jaamac qareen Mustafa Maxamed Jaamac iyo Cabdishakuur Maxamed Dige oo qareen u yahay Cabdirasaaq Maxamed Faarax maxkamaddu waxay ayiday xukunka tirsigiisu yahay ma'raga na 115/2019 kana soona baxay 3 bishii 6 2019 maxkamaddu waxay cuskatay shareecada islaamka iyo qodobada qaanuunka suuratu maa'ida aayadda 33 suuratu baqara 177 kitaabka nidaam alqadaa 185 qodobada qaanuunka 401 398 440 434 garsoorayaasha maxkamadda sare Nuur Ciise Maxamed gudoomiye wuu saxiixay Axmed Haadi Aadan Yuusuf xubin wuu saxiixay Cabdiqani Diriya Cawl xubin wuu saxiixay Cabdullaahi Cismaan Maxamuud wuu saxiixay wabillahi tawfiiq maxkamadu xarunta dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkaygiyo dumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkeeniyo dumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayuulay dhagaysta dhimadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicin